waxaan kuu soo bandhigi doonaa caddeemo rasmi ah oo ku saabsan qoladani qarsoon ee Illuminati-ga ah in ay ku dhex faafeen ama ku milmeen dhammaan dadyowga Soomaaliyeed. Ha u badnaatee kuwa qurbo joogta oo kor horba eega keeneen ganacsatada haatanna ay wadaan qolada caanka ka ah social media. Tani waxaan ku dhahaa waxay tahay walaal macaan ila fahan muuqaalkani dhammayso. Waxaan ku dhahaa waxay tahay haddaa xasuustid bandhig sanadlaha Astaan TV ee ku abaalmarinaysay dadka caanka ka ah ama ugu hadalhaynta badan ama aan kasoo qabto dadka caanka ahba in ay guddoonsiinaysay abaalmarintani. Abaalmarintani midkani kulligoodii waxaa ku wada yaala calaamada triangle-ka kaasi oo aan ku sheegay triangle waxaa loo isticmaalaa ama isticmaala dadka caabuda shaydaanka. waayo calaamadaasi waxaa isticmaalaan saaxiriinta ama sixirka madow dadka sameeya ayaa isticmaala. Sixirkaasina marka waa u dhawaansho shaydaanka loo dhawaanayo ayay tahay. Sida anaga salaada aan ugu tukano ilaahay aan ugu dhawaano qofka Illuminati-ga ahna waa inuu markaasi qaataa triangle-ka ama 36. haddaa aragtay fanaanka Omar oo ku qeylinaya triangle igu soo gaar, triangle ibadbaadi haddaad maqashay maskaxdaada fur si wanaagsan ila soco muuqaalkana dhammayso iyo sababta ay dadka caanka ah Nairobi ugu aadaan ayaan kuu soo bandhigi doonaa. Balse muuqaalkani waxaan rabaa inaan kusoo koobo 4 daqiiqo. 4 daqiiqo ka badanna insha Allah waxaan rajaynayaa part 3 in aan kasoo dhigi doono maadaama ay dheer tahay in aan falanqeeyo. Soo dhawow waxaan kaa codsan lahay page-ka follow, like, share, comment. Waa anigoo Umar Oscar. Ma ogtahay qoladani qarsoon Illuminati-ga ah barnaamijyadooda waxaa gacanta ku haya dad madax sarsare kuwaasi oo iskugu jiraan qurbo joog, wasiiro, xildhibaano iyo sidoo kale ganacsatada Muqdisho iyo sidoo kaleba haldooro oo markaasi caan ka ah baraha bulshada. Waxa ay saldhig ay ku leeyihiin xerada Xalane oo lama galaan ah. Haddii aan kuu sheego markay xalfadan Astaan ay qabanaysay waxaa kasoo qayb galeen inta ugu caansan uguna haldoorka ama indhahas ummadda Soomaaliyeed ah oo dhan ayaa markaasi kasoo qayb galay bandhigani. Waxaana lagu shabadeeyey calaamada triangle. Triangle waa waxa ay ugu muhiimsan ama laga rabo qofka caabuda shaydaanka waa in uu markaasi qaataa calaamadani ama jirkiisa ku sawirtaa ama waa in qofkan uu bartaa sixirka madow. Shaydaanka waxa kaliya looga kulmi kara ay tahay oo kaliya inaad baratid sixirka. Ani ma dhahay dadka dhan meesha wada joogeen waa Illuminati, dadka caanka ku jira dhan waa Illuminati maadaama kan ay qaateen ma dhahi kari, laakiin qaarkood ayaa Illuminati ah. qaarkoodna ma oga waxa calaamadaas uu yahay. Calaamadaasi waxaa isticmaasha weliba waa calaamada Israel ay isticmaalaan Yahuudda, waa calaamada Yahuudda isticmaalaan. Sidoo kale sixir kasta waxaa loo isticmaalaa calaamadaasi triangle-ka ah. Bal u fiiri ninkani hadiyada boxka ku jira la guddoonsiinaya waxaa ku sawiran. Sidoo kale ninkani meesha taagan background-kiisa waxaa ku sawiran calaamada sambuusiga ah. Taasi oo sii xaqiijinaysa barnaamijkani in ay wataan qolada Illuminati-ga kuwaasi oo lasoo marsiyey Astaan TV. Haddii Astaan TV aysan cilmi u lahaynin fadlan ku meeshin gareeya ha iska ilaaliyaan calaamadahan oo kale in ay mar dambe loo adeegsanin abaalmarinada ay siinayaan dadka caanka ah maadaama ay dhiiqo lugaha la gelayso. Haddii ay ogtahay Astaan ayaga naftirkoodii dadka mas'uuliyiinta ah ayaa ku jira ururkani Illuminati-ga ah kuwaasi oo raba in ay baadiyeeyaan dadka caanka ah iyo ummadda Soomaaliyeed oo ku xiran dadkaasi caanka ah. Marka waxaan dhihi lahaa dadkii qaatay calaamadahan oo dhan ha loo sheer gareeyo. Calaamadani waa calaamada Illuminati-ga ah. Fadlan hadduu gurigaaga ku yaalo ogaaw xitaa malaa'ig xitaa ma soo gelayso sababtoo ah waa calaamadaha lagu dhibaateeyo ummad dhan lagu dhibaateeyo. Israel ayaa xiran waa calaamada saaxiriinta ay isticmaalaan. Fadlan haddii hore ay u guuleystay ama guriga uu ku yaalo iska dheeray haddaad ogtahayna kulli waaba tahaye haddaadan ogeynna ilaahay dartiis iska saar si gurigaaga malaa'ig u soo gasho arsaaq xalaalan saa u heshid. Ayaad u mahadsan tahay. Hadduu barnaamijkan dheeraado insha Allah barnaamijka xiga waxaan kuu falanqayn doonaa dhammaan dadka caanka ah sababta ay u aadaan caasimadda Kenya ee Nairobi. Ayaan barnaamijkeena part 3 ka dhigi doonaa. Soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad waa anigoo Umar Oscar. Follow, like, share, comment.